xaflad si weyn loo soo qabanqaabiyey islamarkaana jaaliyadda reer Sweden ku soo dhaweynayeen ololaha la dagaalanka qaadka ayaa lagu qabtay caasimada dalka Sweden ee Stockholm iyadoo xafladda ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee Stockholm iyo waliba madaxa ololaha qaadiidka Abuukar Awaale waxaana xafladan intii uu socotay suugaantii iyo qodbooyinkii laga soo kala jeeshay ahaayeen kuwa si weyn u saameynayay dhibaatada qaadka u geysta bulshada Soomaaliyeed sida lagu cirib tiri karo qordab iyo ninkii qaad cuna qiimo beel noqoye waa inuu qamaashiga qoryaha qamax ku dirtaaye waa inuu qabkii qooq dameer qaylo weyn yahay waa inuu qoys qaraabe iyo qadarin qaaladii dumare waa inuu caruurtana quba oo qabad ku qooqa waa inuu qatiimada qablaha qaawanaan yahay waa inuu shaxaad qaad iyo qoonsi leeyahay waa inuu qayrkii aan qayilin qisim ka qaadaaye waa inuu qamaarkii habeen soo qawaxsade waa inuu qanjaalkii qardaha soo qardaadsade waa inuu talada qoonkii wacnaa qaadi kari waaye waxyaabaha ay u soo guuxa maadaama nin wadani ah oo nationalist ah oo dalka Soomaaliya ka fikira aan ahay waxaan ugu dhacay in loo soo diray ciidamo aan la arkaynin waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka soo qabanqaabiya xafladan iyo martideena sharafta leh Abuukar Awaale markale si gaar ah waan uga mahadcelinayaa Abuukar halgankiisa dheer waxaa dhaqan inoo noqotay inaanu halabuur fara badan samayno laakiin wax guul ah inaan ka gaarin hawl kasta ay nala dhicisowdo bil labo ka badan aan wadi weyn waa inaan diidnaa oo waa inaan dowladdeena iyo mas'uuliyiinteena iyo culimmadeena iyo cid walba qof walba inuu xil iska saaro hooyadu inay ilmaheeda xataa hadda jooga ay u sheegto qaabka waa qurun iska jira qadiid.com haddaad ehel u tahay qof qaad cuno I'm sure each and inteena meesha fadhiya waxaad taqaanaan ama qaraabo tihiin ama daris la tahay ama ehel tihiin qof qaad dhibaato weyn u geystay alxamdulillah horta waan kaga mahadcelinayaa qoladina kalsan hawshaad fiican aad haysaan runtii aad ayaan ugu hanweynaa jaaliyadda reer Sweden oo ku batoomayay jaaliyad weyn oo tun weyn oo cod weyn leh runtii arintiina way ka jawaabeen si diiran bay u soo dhaweeyeen caawa khubarada halkan isugu timid gabaygii buraanburkii iyo adaladii dhiidhiirnaa laga soo jeediyay waxaan aaminsanahay inay taaban doonto qulubta Soomaaliyeed dadka reer Sweden ayaa waxay ka mid yihiin bulshooyinka dhibaatada saameynta ay Soomaalidu ay ku leedahay qaaradda Yurub gaar ahaan dhibaatada qaadka uu geysto waxaana dadka Soomaaliyeed gobolkan isugu yimid dhamaantood ay ka wada qanceen qodbooyinkii gadaashan laga soo jeediyay Maxamed Yaasiin Xaaji Kalsan TV magaalada Stockholm